beesha Axmed Garaad cuqaasheeda kamida shirka iyagana aanu qabanay wuxuu ku saabsan yahay munaasabadana aanu qabanay waxay ku saabsan tahay shirkii Axmed Garaad oo su'aalaadna laga soo weydiinayo sida uu dhacay iyo waxa uu ku saabsanaa inaanu tilmaan ka bixino wixii toosnaa iyo wixii dhexgalay oo qalad ah inaanu tilmaan ka bixino waxaa inta noo raaca beela naga mid oo aan u gudbinayno tala soo jeedin iyo salaamba haddaan beelaha horeysiyo marka ugu horeysa waxaanu 14 iyo cadadka quraanka ku salaaminaa garaadka guud ee beesha dhulbahante garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo hadiyo gooraale ku hawlan danaha guud ee amniga ee beesha dhulbahante iyo beelaha la jaarka aba iyo danta gaarka u sii beesha dhulbahante ku hawlan baanu salaaminaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu sidoo kale waxaanu salaaminaa garaadka labaad garaad Saleebaan oo ah xagga qodobka koobaad da'da dhulbahante garaadadiisa ugu da'weyn xagna garaadka labaadka ah iyo beesha Maxamuud Garaad oo shir ku qabatay magaalada Yagoori turxaan bixineed oo hawshaas dhammaantoodba waa salaaminaa si gaar ah waxaan u sii salaaminaa shirkii uu hagayay garaad jaamac garaad Ismaaciil Xaaji Ducaale oo beesha Axmed Garaad shirkeedii soo wada salaamay isaga iyo beeshuba أنا sidoo kale aan u salaamayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu salaaka walaalayaal shirka aad nabadgelyada ee aad ka shaqaynayseen haddaad Maxamuud Garaad tihiin ama ugaadhiyahan iyo aatin ugaadhiyahan siyaad iyo jaamac siyaad Maxamuud aad tihiin walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa oo talagelyo aanu idin leenahay wax allaale wixii leexsan idinku sugta ruqankii la hadabada haya ma kacda baa la yiri eelka kii dhigay oo ergeetoy baa la yiri idinka saxan kara guddu u qaban kara walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa oo tala soo jeedinaanu leenahay arinta idinku caafimaad siiya inta haddaan ka gudbo shirka Axmed Garaad haddaan u soo noqdo shirka ajantihiisu wuxuu ahaa in xaqsiin midnimo tullimo ehelnimo oo ajantihiisu uu u socday waxa uu ku khaldamay dhaxdii kaga khaldamay in siyaasada oo dad gaaru watadu oo guruuba ama se xusbiya waa isla hale dadkaasu ujeedka marka hore shirku uu ahaa qaabkii u dhacay waa kaayagii waa u hambalyeynaa sidii u soconayay qaabkii u soconayay macal gudid u shaqaynaysay gudidii ka shaqaynaysay xoolaha ururinta iyo cidii bixisay dhammaantoodba waa u hambalyeynaa waxa safar ku fiiq leh shirka dhexdiisa wixii leexday wax leexday dadka guruubku wuxuu daway nadaab ah inuu adeegsado mikrofoonka inaan dadku wada lahayn sawirka in la iska dhiliil gareeyo oo aan dadku wada lahayn shirka inuusan maartay in qaybu hagto inaha aan farta ku fiiqanaa waa inta laakiin haddii aad go'aamo soo baxeen shir go'aamo ka soo baxay Axmed Garaad ku mudaysan yahay beelay kala dhulbaanta lagu casuumay halka wal isugu tagay shirkii waa soo gabagaboobay waad ka qayb gasheen sawir iyo mikrofon macaan tari maayo waxaad kala tacbansan muxuu yahay nabadoone waxaanu ka cabanaynaa wax allaala wixii amniga ku saabsan wax allaala wixii ansixin ku saabsan inaad tira yaro guruubhu soo gooyaan maahay waa inaad dul ahaan Axmed Garaad ka wada tashada wuxuu ka soo tashadayna dabeedna lagu dhawaaqda waxaanu ka wada tashanay naga dhaxeeyay ma uusan ahayn goob joogayaa buu ka ahayn qaybtii lagu daray laakiin qaybta guud baanu wada lahayn haykalka Axmed Garaadnimo lisoo dhawaanta iyo xaqsiintiisa kaasa naga dhaxeeyay laakiin kanu naga madhayn kaanu ka tabanaa waa ka sida darteed Axmed Garaad wuxuu ahaa waa dawli qaabka dawli inuu yahay waxa daliil u ah 1960 ba xornimada Soomaaliya la qaatay isla bilihiiba dawladda Soomaaliyeed waxay samaysay xusbiyadaas Axmed Garaad ku xaadiray ilaa saacada uu yahay xusbiga ASWL xusbiga Calancas xusbiga Dabka xusbiga aan sheegaya ama gruubka aan sheegaya kuwaas ku saabsan yahay la waa inaan la cadeeyay marka xusbiga Calancas muddo markii la joogay wuxuu codsaday xusbiyada kale ku codsaday in la sameeyo uu xusbigu sameeyo Calancas sandalad isin war walaalayaal nala dhisa ma saasaado waa la qaadanay ilaa teetanka hadduu ku jira waxay qoonsadeen anagu ma aanu garan
waxay sameeyeen dad urursi xusbiyadii kale laga saaro dadka la siiyey bila sharafta waa dad ka tegey xusbiyadii kale oo calaan cas lagu biiriyey laga bilaabo haddada tan waxaad leedahay xisbiya sida ka jira xisbiya jira miyaa shirka ka dhexay dalaacada xusbiyadii waxa la muujiyo xusbiya aan maanta aan taladooda aan ahayn oo aan siyaasad aan lagu soo dirin ilaa xusbiyadu waa siyaasad baa maanta laga shaqeeyay waxaanu la qaadanay sida uga shaqeeyeen haddii aan la bedelin siday uga shaqeeyaan baanu la qaadan guddidii hort waa ka xusnay laga bilaabo shirkii intii dhexe guddi Axmed Garaad maaha waa guddi guruub xusbi calaan cas cid la socotaa iyo cuqaasha u ahna guddi Axmed Garaad xaggaan bay ka noqdeen xusbi bay noqdeen sida aanu farta ku fiiqaynaa waa caynka mas'uuliyadii ay Axmed Garaad u hayeen garsoorkii ay Axmed Garaad u hayeen dhexdii ay Axmed Garaad ugu hayeen waa ka cambaroobeen waxay u gacan galeen xusbinimo iyo wax dan u gaara arintaanu farku fiiqa ku sameeynaa waa inta waxa weeyaan chief caaqilka guud ee dhulbahante ama gobolka Cayn waa kooreeya jaamac kadib ina sadaladaha iyo mas'uuliyadda la iska qaado waa mamnuuc xeeb weeyaan waa la tilmaami karaa waa la oran karaa chief hebel waa la oran karaa chief hebel waa la oran karaa laakiin chief caaqilka guud marka la tilmaamayo maanta waxa ku fadhiya Cabdiqani Muuse Yuusuf Kooreeya ku fadhiya cid kastaabana ixtiraamkeeda ay leedahay waxaan leedahay walaalayaal qof walba ixtiraamkiisa hal la siiyo arinta noocaas ee la iska qaadayaana raali gelin laga bixiyo dhowr jeer baan arinta aanu maqlay oo xanaaq ku kala galay waxaanu anagu leenahay nin kasta teetalkiisa yaan laga xoogin isna ha ku shaqeeyo warahmatullaahi wabarakaatuhu alxamdulilah وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنيقو عاقل عويل عبد علان لا كان ميدا باشا معلميها إنو صور دافن كشريسي مقالة بوهو اللي بيلوينت أحمد قراد رونهانتي وحنادي آدي همباليا وقدر يا شركي بلارنا باشا أحمد قراد يالتهي دقانك وكغيب قلي turxaan bixinta iyo xaqsiinta iyo horumarka iyo nabadda lagaga shaqeynayay runtii si guud shirka waan u mahadnaqayaa oo mahad ballaaran baan u jeedinayaa si gaar ah waxoogaa cabashooyina ama tabasho ah ama dhaliilo ah oo ka muuqanayay shirka inaan wixii ra'yigayga ku beegan aan ku cabiro ayaa waxaan u qastiyay inaan arinta halkan fikirkayga aan ku muujiyo marka ugu horeysa shirka ajandihiisu wuxuu ahaa 3 qodob qodobka koowaad midnimo qodobka labaadna wuxuu ahaa amniga qodobka saddexaadna wuxuu ahaa shariicada haddii aan kala qaado 2 qodob waxay u baahan yihiin horta si guud 3 qodob oo macquul weeye laakiin qodobada qaar waxay u baahan yihiin taxadir ballaaran sida qodobka amniga oo kale wuxuu u baahan yahay in beeshu ka wada tashato la faaleeyo la falanqeeyo su'aal baa meesha taala ah amniga aan sugno okay sidee u sugnaa magaalada kullideed ciidamo farabadan baa jooga ciidamadaasina qaab beela ay u degan yihiin cid isma weydiin amniga aan sugno laakiin cidda sugaysa waa tii waxay ahayd runtii in arinta aad looga fiirsado qodobkaas xasaasiya oo cidda amniga sugaysa ay noqoto cid la isla og yahay oo dadka cuqaashiisa iyo waxgaradkiisa iyo odayaashiisa ay ka wada tashadeen oo ay og yihiin waxa lagu soo bandhigayna maana jirin qodobka midnimada waa loo baahan yahay oo midnimadu waa power iyo xoog aad iyo aad baan soo dhaweynaa isaga laftiisana qaabka loo midoobayo fulinbu wuxuu u baahan yahay falanqayn iyo in meel lagu tiiriyo oo heshiisi laga galo oo beelu ka wada qayb galaan qodobka saddexaad haddii aan soo gudbo shariicada islaamka aham jiddan weeye waan qaadanay waan ahayn awal baanu islaam ahayn
haddii ay beesha soo jeedisay in lagu dhaqmo waa ku dhaqmaynaa beesha anigu aan metelo ee caaqilka u ahay waxaan ballan qaadayaa inay ku dhaqanto ciddii iyada wax ka gaadhaan iyo ciddii wax ka soo gaadhsiiso iyo nolol ahaanba inaan ku dabaqno shareecada islaamka wax walba nolosheenna weeye aakhiradeenna iyo adduunkeennaba weeye arrintaa aad iyo aad yaan u soo dhoweynaya laakiin qodobada kale waxay u baahan yihiin ka fiirsi intaa kadib waxaan dareennay shirka in la geliyey waxoogaa siyaasad ah taas oo ah qabyaalad waxay u kala baxdaa 3 nooc mid waa dadku qoloqolo isu qabyaaladeeyaa qodobka labaad wuxuu isu qabyaaladeeyaa firqo qodobka saddexaad wuxuu isu qabyaaladeeyaa group wax la yiraahdo run ahaantii qodobka ugu miisaanka badan ee dadka saameynta ugu weyn ku leh qodobka groupka weeye dadka oo dhan ma dhex yaal dhaqanku ku dhex jira runtii inaan farta ku fiiqno dhaliisha muuqata oo aan tusno inay dhaliishaasi jirto xaq baan u leenahay dhaliisha koowaad ciddii wax sixi lahayd ee wax toosin lahayd ee wax xagi lahayd haddii dhaliisha ay iyagu hogaaminayaan waa mushkilad weyn wey aad iyo aad marka qodobkaa oo guruub ah oo dhaliil ah oo dhaqan ku dhex jira oo shirka majiira habaabiyey ayaa jira qodobada ugu waaweyn ee meesha ka muuqanayay aan ku dhaliilayna shirka waa qodobkaasi ka mid weeye waxaa ka mid a maalin dhaweytaan beesha axmed garaad ka mid oo aadan axmed la yidhaahdo ayaa waxaanu qabanay shir qolaa shirka inay yimaadaan lagu qancinayey rag badan oo 30 ama ku dhow oo cuqaashii iyo garboodkii iyo waxgaradkii ah ayaanu shirka isugu nimid raggii cuqaasha ahaa su'aal baa la isweydiiyey run ahaantii su'aasha la isweydiiyey waxa weeye war shirka ajadihiisu muxuu yahay marka halka waxa iga soo baxday su'aal ah haddii aynu inagu cuqaashi nahay oo hay'adii dadka ugu sarreysay nahay shirkan inagu aynu leenahay shirka ajadiisana aynaan garanaynin war shirka yaa horta dusha inaga sii xukumo oo inoo wado oo ila rag dhow wuxuu muujiyay inaanu shirka ajadiisa aan garanaynin arrintaas weydiin bay leedahay waxaan rabaa inaan yaani dareemno oo aan ogaano war markaynu dhaqanka nahay waxa la leeyahay wixii beesha ka jira inaynu waxna ka toosino wixii qaloocan ka toosino yaani shaqadeena weeyi laakiin waxaynaan ogeyn inaynu horta hubino oo beelaha ilaga metelnee waxaynu ku metelayno ee meesha ku tagayno ee ku metelayno ee ugu maqanahay waa inuu yahay wax aynu inuu ka tafniidin oo maskaxdeena iyo maankeena ka soo maaxday arinta dhaliil baan halka ka jeedinayaa dhaqanka waxaan leeyahay arrintan iska hubino inta kadib waxaan oran lahaa qodobkan gudida waa mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shaqo naga dayacnayd runtii oo ay ahayd in la qabto hadda ka hor ayay qabteen dhaawacyadii dhibkii axmed garaad kala gaadhay iyagaa ururiyey meel kasta ugu tegey keenay waxqabad muuqda weeye waxaanu leenahay marka hore waa idinku hambalyaynaynaa marka dambena waa idinku ducaynaynaa waxaan leenahay wanaagga aa qabateen miisaanka xasanaadka allah idinku daro waxqabadkiina weeye taa bedelkeedana waxaa leedihiin dhaliilo run ahaantii taas oo ah oo ka timi gruubkii aan soo taabtay xaggiisa inay saamayn idinku yeelatay oo aa amar ka qaadanayseen gruub keliya oo aydan dadka aydan ugu dhex ahayn yani shirkii iyo hawshii wadateen taana dee dhaliil aa leedihiin weeye waxaan raacinayaa intaa qodobada lagu qoray bayaanka ku qoran waxaa ka mid ah guddidu waa guddi axmed garaad waana guddi joogtaa waxaanu leenahay maaha shaqadii aa qabanayseen waa qabateen guddi dambe ma tihidin dadkiina ka mid tihiin niman axmed garaadaa tihiin waxgaradkeennaa tihiin idinmaanu diran shaqo dambe oo aa qabataan haddaanu idiin baahano annagaa idin yeedhayna